بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة برنامجكي سوم تي في يلا بعض حلقة نوكل نجد داون شرتين مركلنا عاد كده داون شرتين ويب سايت كيجوا www.somtv.org هذا بو حنشوفنا ما أنت وحويان حافظ كم إذا حافظها مقالة سيال واشنطن USA رنتي ماشي حنشوفنا نسوقنا مذو حويان دنيا صومالية أو aad iyo aad runtii u diiran oo kare dhinac walba marka laga eego waxay noqdeen dad aad waxtar ugu leh community-ga gudihiisa marka loo eego dhalinyaradani waxay ahaayeen dhalinyaro halkan ku dhashay ama qaarkood iyagoo yar yimid haddaba Chinese-ka ay ka faa'iideeyeen wuxuu noqday inay caruurtii Soomaaliyeed ee badankooda ahayd inay isu keenaan maadaama iyagu experience-kan ay ugu horeeyeen taasoo noqotay bal inay sameeyaan sports ama waxyaalo badan ay ku tartamaan caruurta Soomaaliyeed taasoo dhinacna ugu sheegeen dhinaca diinta oo runtii aan oran karayo waa niman aad iyo aad waxtar iyo wax qabad runtii waxa kamida macallin ayaan leh oo aad wada garanaysaan wajigiisuna kaayay Xamsa kamida Cabdishakuur baa kamida Cabdiraxmaan baa kamida runtii waad wada baran doontaan insha Allah videoga xagga dambe kaga jiraan wase ujeedada ugu weyn ee halkan u taagnay waxa weeyaan inaan annaguna support gareyno dhalinyarada ay soo keeneen waxa weeyaan waa companion athletics dacwa oo runtii waxa weyn inay geeyaan u saaraan meelaha qaar dalxiisyada loo tago iyo inay keenaan teamam basketball ama qaybaha kale sportska ay ciyaaraan tani laakiin ay tahay mid ay ciyaarayeen basketball kubadda kolayga oo isaga soo horjeedan teamam badan muddadii la soo dhaafay ay qabteen dhowr koob laakiin tan uu ku sugan yahay kuwii hore uu ka sii weyn hadda waxay halkan ka arkaysaa koobabka yaalla jersiyadaha ay ku bixinayaan inuu yahay laacibintii iyagu dhibcaha fiican ku guuleystay iyo kuwii iyagu noqday ciyaar wanaagii ama tiimkii ugu ciyaarta fiicnaa ama tiimkii qaatay intaba haddaba adigan arkay dhalinyarada da'adka yar xagga hore fadhida waxa ay aad uga soo qayb galeen iyagoo aad iyo aadna ugu faraxsan doonayeen bal wax inay ka arkaan sportska iyo qaababka u dhacaya tan waa tii ugu horeysay ka mid noqdaan inay arkaan dad Soomaaliyeed oo bulsho Soomaaliyeed oo meel isugu timid oo taageeraysa dhalinyaradan age-ka yar runtii waxaan u marnay ka ugu weyn 14 jir weeyaan ilaa 16 jir ilaa 6 jir ayaa ku ciyaaraan basketka waalid badan baa ka soo qayb galay support gareeyay inkastoo ay sheegeen macallin ayaan la yiri xagga waalidka waxaad moodaa inay wali naga dambeeyaan aan jecelnayna gacanna siiyaan taasi waxay keenaysaa buuri in aynu ka ilaalino caruurtoodii meelaha xun ay tagaan ama ay chance u helaan meelaha aadka u khariban ee runtii khadka asi uu yaalo marka loo eegayo qurbaha oo ah ilmuhu inuu xumaado ama gaangiisi wax raaco laakiin haddii tan laga qayb qaato waxay qabtaan ciyaaraan habeen kastoo Friday night iyo Saturday taasina waxay busy ka dhigtaa ilmuhu inuu meel kale tago ama uu weekendigi noqdo inuu busy ku noqdo marka fadlan waxaan jecelay bal qaybtan kalena inaan ku wareysto Xamse ama Cabdishakuur oo ragga halkan taagan oo u maleynaya iyagana inaad wajiyadooda garanaysaan oo wax badan soo qaban qaabiyay haddaba waa kan dhinacayga taagan Cabdishakuur Axmed ayaan jecelay oo saan sheegay waa dhalinyarada cuslaatay ma oran karay laakiin waa abaftooniga ragga galay ee runtii experience-ka fiican u leeyahay caruurtan wax la qabtaan sidee aad arintan uga qayb qaaday ay noqotay in dad badan isugu keentaan maxaad dadka waalidka u sheegaysaa Cohorta Companion Athletics is a program where we help all the inner youth kids, that are in trouble, that need help, that need to be guided in life. And basketball is basically like a gateway to keep them off the streets and help them out in life so they can become successful. We do programs with like companies like Microsoft and things like that so these kids can go to a university in the future and become successful, inshallah. waxa kale oo isagana Chinese soo leeyahay Cabdiraxmaan Kaari xaflad aad u qurux badan weeyaan sidaad jeceshin future-ka inaad sii marisaan maxaad soo sheegaysaa dadka halkan naga daawanaya meel kastoo joogaan بسم الله الرحمن الرحيم آدي آدم ما سنتين Somali channel آدم ما سنتين from Seattle waxaan rabnaa intaan dad qof kasta oo maanta arkaya xafladan ma sha Allah aad loo imaaday anaka dhalinyarta wax badan baan u qabanaa waxa kamid ah basketball dacwa Islamic activities camping marka waxaan rabnaa in the future community-gan caruurtan mustaqbalka intii noqdaan generationka that's going to lead the community so we want to waxaan u baahanahay support-ka waalidiinta taageerayaasha waxaan u baahanahay masaajidada qof kastaba oo community-ga kamida intiina taageeraan
ay ka noqdaan maxaa la dhahaa part of this program oo communityga wax badan iyo isbedel badan u soo wada insha Allah jazakallahu khairan wassalaamu calaykum raxmatullah waxaan u malaynayaa xamse introduce ma baahna xamse magacaaga maxaan ku daraa mise xamse baan ku dinaya dadku ay ku garanayaan xamse sidaad u aragtaa adiga lafdigaagu barnaamijkan wax badan baad qayb ku lahayd fikrado badan baad wax ka bedeshay horena u sii dhigtay dhowrkii sano ee la soo dhaafay aan idhaahdo even the basketballka masaajka lagu taagaan idhaahdo ood maanta chance u heshay hadda ka horna aynu ka wada hadalnay sidee fikradani kuula muuqataa si aad si jeceshay inaad hore u sii marisaan Bismillahirrahmanirrahim. I really want to thank Som TV for actually being part of the big support of the community. I would like to thank all the sponsors. MashaAllah, may Allah reward them. Runti is a big step. It's a big step to bring us together as one ummah. And Runti, I have not much to say other than we want to thank the support of Som TV. We want to thank all the masjids that supported us. And we're looking forward, actually, every state to follow our vision and to help the youth to stay away from the street, inshallah. So, jazakallah khair. waxaan iminkana jaanis la helnay ubax xarsamo oo iyaduna ka mid ah waalidiinta carruurtu ay ku jiraan companion dacwa aan idhaahdo qaybaha basketballka iyo soccerkaba intaba oo aadna u support gareysa carruurteedana u daba socota ubax ku soo dhawo marka hore Som TV waxaan ku leeyahay sidaad fikradan u aragtaa sidaad si jaanis ugu heshay inaad ka qayb noqoto oo halkan timaado waalidiinta runtii aan meelo badan ku arkan oo aad ugu horeysa marka sidee fikradani kula egtay wallahi companion athletics horta in magaaladan aniga intaan deganaa organization oo ilmaha u danaynaysa iyo dhalinyarada iyo maaragtay kobcintooda xagga maskaxiyan waxaan u arkay inay ahayd wax loo baahnaa muddo badan anigu siyaalo ma deganeen in badan laakiin waan iman jiray reerkayaga degan walaalahay baa degan marka 20 sano ka badan bay Soomaalidu halkan deganaayeen ma aanan arag dad ama dhalinyaro inta isku xilqaama siday uga korin lahaayeen ubadka maskaxda oo ay ugu sameyn lahaayeen waxyaabo ilmihii manaafacaad soo geliya xagga dadka siday ula dhaqmi lahaayeen ama xag sporti iyo xag maaragtay team sida loo dhisi lahaa كلها أنا وحنا كواركين يهين companion athletics. وكل راعي رنتي أد بتغضب كاي حسوسي وتكون مع السنة ورنت حفلة أنت عليك أو عرور سديت شر لحشر إلا يا فرت بنشرولي أنت مال السجود قال لقوا ما يمن ولا مرة كسر قيب قلا مركز رنتي وافكرت في عن إن محيس سمين عرور هذا مدة أنت لك بس كشرين. أنا جو حقيقة شرا إن كيجوين هذا وشاني طبعا لحية طبعا ونقربها إن سبورتيجان تيم كويحو كشرا إن باسكت بولكا وحكلو يجود شرا إن لبا يرير أو عيار سمركا سكر بيسميان which أن يجانا مركز ده هذي عرور لنعيا ذي بوا كوه ذي شران وقبر يويل لبا يرير مركز قبله هنا وعيار كران ويلشي ونلو عيار سينيا إن منعها هذا في رصد ديوجا كلو سبورتيجا أسميا لعق tiro badan ayaa laga yaabaa inay ku charge garayaan ilmaha marka waxaan kale aad ugu faraxsanahay inay arintan ahayn wax lacag ku saabsan ay tahay wax community ku salaysan inay tahay baan anigu aad ugu faraxsanahay mana aha kaliya inay kubadii maskaxda kaga korinayaan diintii bay waxay ku yihiin maaragtay gacan ku siinayaan ilmihi inay duceystaan baa la barayaa salaadii baa lagu tukanayaa waxyaabaha shucuurteeda aad maaragtay u kiciyo waxa kamid ah oo aad ugu qiiroodo shalo kale hadda soccerkii baa la ciyaarayay sabtida la ciyaaro markaan arkay kulli ayagoo saf ku jiro salaadii la tukanay casarka marka waxaan idhi teamkee kale wadankan tiiman badan oo dagaaladu sameysay way jiraan ma arki kartaa baan isir u baxay in ayadoo salaadii la tukanayo oo ilmihii salaadii gamekii la joojiyay marka waxyaabaha waxay kamid tahay aad ka maaragtay igu dhaliyay in hooyo ahaan iyo community member ahaan baan anigu taageero dhinac walba ka taageeri karo companion athletics dadka sameeyay waa fikrad aad u fiican maxaa hadda dadka ama siyaal Washington degan ama meelaha kale adduunka degan fikran aad u gudbin leed ee experience arintan hadii hore qaar u sameeyeen waa alxamdulillah waxay fiican sameeyeen haday talada hayaan ama ku tala jireen maxaad fari leed marka ugu dambeyn wallahi waxaan fari lahaa in kulli waalidiinta community memberska maaragtay community organizations kulli intaan isu nimaadno aan wada jir u taageerno annagoonan u fakareynin yaa sameeyay aan u fakarno maxay qaban karaan ama maxay dadkeena ku soo kordhin karaan caruurtayada marka waxaan isleeyahay meesha hadda ay ka bilaabeen inay gaari doonto meel caruurtayada ay noqdaan mid torchka ay wiilashii sameeyay organizationkan u sii gudbiyaan oo ay yiraahdaan annagu waanu ka tagnay booski waanu ka kornay bal ilmihii aan soo tababarnay ha sii wadaan oo noqoto organization la isku sii gudbiyo oo kuwa kale ay sii gacan qabtaan aysan noqonin mid hal group intay sameeyeen ay groupka
sportskaasi ku duqoobaan ay noqon doonto mid ay sii gudbiyaan marka waanu support gareynaa waan taageeraynaa insha Allah dadka dhanna waxaan leeyahay fadlan bal insha Allah isku dayna inaan taageerno kulligayo waad mahadsantahay okay haddaba bal qaybta gabdhaha ayaan iyagana jeclaynaa wax ka wareysta macallimiinta iyaguna ah ee wax ka wada qaybta sportska ee gabdhaha san halkan hore idinku sheegnay ahayd companion dacwa oo ah gabdhuhuna inay ciyaari karayaan soccer basketball iyo inta sports jirtaba waxaan jeclay marka oo aad wax uga bara oo idhaahdo macallimiinta ku jira waxa weeyaan Samira iyo Fadhiya ku soo dhow Som TV bal wax nooga sheeg habluhuna sportska ciyaaraan iyo qaybaha ay kala yihiin iyo sida u bartaan wax gabdhaha xagooda waxaa suubinaa basketball haddana waxaan suubinaa classyo oo caqiide ah oo isku imaano bishiiba hal mar tan kala suubinana waxay tahay bishiiba hal mar oo basketball la ciyaaro marka yaa la hilmaamin gabdhihii programyadana hala keeno insha Allah waxaan u sii dhibay ayadana Fadhiya Assalamu alaikum. So as Companion Athletics, we have a lot of sisters program that we're starting up this year. One of the things that we started doing is having basketball tournaments for the girls. And we also have monthly halakas and we have classes, weekend classes specifically geared only for the girls. And so we would like everyone to remember that the girls are also part of the community and they also need these type of activities. So please come and support. waxaan kaloo la taaganay Burhaan iyo Samsam oo iyaguna ah waalidiinta carruurta ay halkan u tagto Burhaan fikradan la wado ama aan idhaahdo runtii aad ka qiirada badan leh ee carruurta awardska caawa lagu siinay xafladda intan leegna da'yar loo sameeyay ilaa iyo 16 jir ugu weyn sidaad u aragtaa carruur aad dhashayna way dhigtaan meesha marka waxaan leeyahay waalidiinta kale oo ama carruurtooda ay wadanka joogaan inay ku soo biiraan community-gan waxyaalo badan oo faa'iidooyin badan buu leeyahay community-gan waayo waxa weeye ciyaalka in ayaga isbartaan Soomaaliga xataa isku bartaan in yaani intuu raaci lahaa dhaqamo kale iyo dad kale iyo madow iyo wax kale oo ka raaci lahaa inaad keentaan inaad meeshan keentaan oo waxa weeye aad waliba especially waxaan leeyahay waalidiinta odayaasha inta fadhi ku dirka iyo meelo kale ay warka raadinayaan ama siyaasad ku mashquulsan yihiin ha ku mashquuleen carruurtooda ha ku mashquuleen waxa weeye wiilashooda waliba wiilasha xoogga ha saareen basketballka iyo soccerka labaduba waxay u tahay ciyaalkii mar waxay u tahay in ay yaani ay ya physical ahaan ay jirkoodii ku dhismaan mar waxay u tahay inaad ku ilaalisatid oo ayagii waxa weeye aad ku ilaalisid aad iyo aad baan waxa weeye u soo dhaweynayaa in community-gan aad baan ugu mahadinayaa mid kale waxa weeye ciyaalka xataa ma ahan meel waa meel diintooda xataa laftigoodii salaadoodii lala socdo oo markii kubaddu ay socoto xataa basketballku socdo ciyaalka waa la isku keenayaa waa la tujinayaa waxa weeye aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa Samsam adigana carruur baa ku dhigata dadka waalidiinta baad ka tahay sidaad fikradan u aragtaa sidaysa maskaxdaada wax uga bedeshay horta barnaamijkan anigu waxaan ahay muddan ku jiraa sida wiilkan hadda bardhaweyd buu bilaabay aniga laakiin barnaamijka ilaa uu furmay ilaa hadda waalidiintii la bilaabaan ku jiraa wax weyn oo iska bedelay cunugayga ku arkay anigu laba wiil baa ay ciyaara mid markii barnaamijka la furuu bilaabay ilaa hadda ciyaara midna sanadkan ku soo biiray marka barnaamijkan wiilashan hawl aad u badan bay sameeyeen wax yar bay ku bilaabeen laakiin hadda waxay haystaan 200 oo ciyaal ah ciyaal kasta noo yimaada ma sha Allah meeshu waa meel aan aad ugu bogay anigoo ka tirsan iskuul baan u shaqeeyaa marka waan aqaanaa ilmuhu baahida u qabaan dhaqankooda dadkooda tusaale u noqdaan marka barnaamijka ani intan ka hor ciyaalkayga Soomaaliba ma aqoonin marka barnaamijkan bilaabeen hadda wuxuu saaxiib leeyahay wuxuu la hadlo macalinku qofku waana ka rabo waa wiilashan marka barnaamijku waa barnaamij aad u culus oo fiican marka waxaan ka codsanayaa madeena iyo dadkeena in insha Allah garab istaagaan hadii la yiraahdo waad mahadsan soo helay Mahad oo isagu directorka masaajidka Abubakar Islamic Center siyaal ku yaala Mahad sideed arintan u aragtay sidee setay waxyaalaha ay wadaan ama sidee intee leg ayuu taageero masaajidku siiyaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين walaalin company dacwa and company athletics waxay aad u kaalmeynayaan ama la shaqeynayaan dhalinyarada taasoo u baahan waqti badan iyo juhdi badan u baahan ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankooda ha saaro juhdiga ay wadaan dadaalka ay wadaan oo ah carruurta inay barnaamij u sameeyaan oo aan ahayn kaliya sportska xataa ay u sameeyaan xataa xagga diintooda iyo seminaar ay siinayaan waxaan ku boorinaynaa juhdigooda inay sii balaariyaan inaguna dee Abubakar daanahay waxaan u taaganahay wax alle wixii umada iyo community-ga insha Allah di Allah wada lagu taageeri karo jazakumullahu khair wa barakallahu fiikum insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi. My name is Omar Abdul Alim.
I'm here at the Banquet for Companion Athletics. I think that these programs are very good for our youth because in these programs they learn about teamwork, conflict resolution, working together, accountability. These are the things that happen in the game of life and everything of that nature. You know, I feel that we need to come together and help our youth because if we don't help our youth, it'll be a dire situation, everything like that. And I encourage all the people to support this, especially the fathers. Please come out. Fathers, you have to get involved. We cannot expect the women to teach these boys how to be men. We have to get involved, everybody, the whole community. These are our youth because one day we will be older and our youth will be the next ones in line to carry the banner and everything like that. So I would love for everybody to come on out and support our youth all the time. Thank you very much. Okay, waa dhalinyaradii iyaguna championship-ka helay teamka la yidhaha Maka waa kan. My name is Hussein Shida and we won the championship, Maka Nation. Hi, my name is Fahid Elmi and I won the championship, Go Maka. Mohammed Yusuf waxaan reynaa championship kareyno. Maka Nation won. Who win? Maka Nation. Who win? Maka Nation. Next year or this year only? All the years. Abdikarim Sharmak. I know when you're born baan u malaynay waqtiga dhalatay Soomaa. Anyway, that's not the question. Sidaad u aragtaa halkan Abdikarim maxay ku muuqataa adeer? meeshan waa meel fiican wuxuu bartay sida banooniga loo ciyaaro iyo meeshan waxa ku bartay ciyaal anigii leeg iyo waxa ku doonaya ciyaalka Soomaalida halkan joogin inuu imaadaan halkan iyo basketball u ciyaaraan waa meel fiican ما شاء الله Somali ba tragresiin aad ku jawaabto waxa filay English. Thank you very much. waad mahadsantahay Abdikarim. Assalamu alaykum. We honor our guest, our brother Mahad, the executive director of Abu Bakr Islamic Center of Washington. Inshallah ta'ala, please come here. Okay, waxa kaloo yeelan chance soo helnay Dudu Cabdi oo kamid ah waalidiintii meesha yimid. Dudu sidaad u aragtaa xafladan caawa da'da yar ee dadka dhan isugu yimaadeen? Wallahi xafladan aad baan ugu farxay because meesha aan joogno iyo awlaadda aan haysano maaragtay wax mashquuliya ama maaragtay maskaxdooda inta TV hor fadhin lahaayeen ama banaankii markay u cararaan hooyooyinka walwali lahaayeen aad baan ugu nasanay waxaana ku baraarujinayaa hooyooyinka aan wali nasiibka u yeelanay ka soo qayb galaan inay yimaadaan ilmaha keenaan maaragtay ay ka walwalaadaan banaanka ama daraag la siiya ama dad xuni duufsadaan ama maaragtay waxyaalahaas oo dhan ay ka walwalaadaan ilmihii caafimaad uma aha TV-ga inay hor fadhiyaan guriga laguma celin karo 2 mitir banaankii waa inaad sidii arigii u daba joogtaa alxamdulillah markii la furay maaragtay qaybtan kambaniyonka markii la furay aad baan ugu nasanay insha Allah waxaan idin leeyahay ka soo qayb gala waxaan la taaganay halka ka muuqda waa macallimiinta waa coachka waa nidhaahda dadka runtii aad ka xoog u siiyay waqtigoodana u galiyay dhalinyaradu inay noqdaan mid iyagu ku toosadanahooda dantoodana aad uga qabta waalidka iyo wixii la shaqeeyay ay kaba si fiican tahay arintu haddaba Cabdi Rashid Sharif oo midigtayda taagan iyo Cabdi Hakiin Sharif waa laba nin oo walaal ah bal su'aashaas waxaan ku horeysiinaya labadiina ayaa weyn horta asaga igu weyn ana ka weynaa okay waa qaatay runtii lama sheegi karayo laakiin waa sayid waxaan doonayaa Cabdi Rashid inaan ku weydiiyo fikradan sayid ku dhalatay sidee baad wax uga qabataan bal wax nooga sheegtaa aniga luqadda Ingiriisiga ku jawaaba insha Allah Companion Athletics was started based on the intentions of a few brothers that came together. Really, we saw the need in the community to bring the youth together, to involve them in sports, to gain, leadership qualities, to become disciplined, so they can become productive members of society. So when we started off, we saw a lot of issues in the community, and instead of taking a back seat, we decided to take action, and do something about it. So we started 2 years ago, alhamdulillah. At this point, we have over 200 youth in the program. We have many parents. We do seminars. We do basketball. We do leadership. We do camps. We do a lot of things, and everything is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We take no payment in anything, and we want to give back to the community. MashaAllah, waxaad u fiican. Cabdi Hakiin waxaan ku weydiinayaa macallin halkan naga maqan laftigiisu bas su'aashan jecel inaan weydiiyo labadiina waxa weyn adaa u hadli doonaan u malaynaa rag badan
rag family waxaas leeyahay baatiin rag full time shaqaysto professional baatiin sidaad waqti u heshaan aad waxa soo caruur ama tire inta leego kale age kasta isugu jira aad u maamushaan inaad meel isugu keentaan waxyaalo badan u qabataan aad u sameeysan anigana waxa ku jawaaba luqadda Ingiriiska insha Allah. Wallahi it's not very easy to put in time 8 hours 10 hours every weekend, but alhamdulillah we find the time to do this every weekend. As a father myself, you know, I see these kids as one of my own kids, and inshallah I don't see this as a hard work, you know. So every weekend I look forward to it. I look forward to roughing the games. I look forward to coaching and mentoring these kids. But alhamdulillah, so far has been very successful. And inshallah, we hope to continue that. And we ask the community to support us. Companion Athletics, inshallah, check us out on Facebook and our website, inshallah. May Allah bless this cause. And we continue to do this hard work, inshallah.